kulan wanaagsan daawadayaal halkani waa warbaahinteena warweyn ku soo dhawaada falanqayn kale oo ku saabsan xaaladda dagaal ee ka jirta bariga dhexe gaar ahaan waddanka Iran Mareykanka oo isagu tilmaamaya ilbiriqsi kasta inuu ku duuli karo Tehran iyo xukuumadeeda haddaba waxaan ku eegi doonaa tabintan qaabka iyo waliba waxyaabaha dhici kara haddii Mareykanka uu isagu markaasi isku dayo in si xoogan uu ku galo dalkaas Iran isla markaana uu duqeeyo maxaa laga filanayaa wadahadallada la filayo in saacadaha soo aadan si toos ah uga qabsoomaan magaalada Masqad ee caasimadda dalkaasi Oman soo dhawaada channelka subscribe saaro daawade siina share gare muuqaalka aanu ku bilownay marka la eego warbaahinta dalka Iran waxay ka hadlaysaa arrin yaab lahaa in badan oo kamid ah caalamka ay si weyn uga fajaceen mas'uuliyiin kamid ah dalkaasi oo ay ku jiraan xildhibaano iyo rag kale oo khubaro ayaaba soo jeediyay halkii la sugi lahaa weerar ka yimaada Mareykanka iyo Israa'iil in iyagaba lagu bilaabo mamaha caana ayaa waxay leedahay inta uusan isagu ugu cashaynayaan ku qadeynaya taas oo ka dhigan halkii weerarka la sugi lahaa in iyaguba weerarka lagu bilaabo warbaahinta Israa'iil geesteedu waxay sidoo kale tilmaamaysaa inuu jiro cadaadis xoogan oo la saarayo Netanyahu oo ku aadan weerar isaguna inuu ku qaado Iran si loo joojiyo marka laga hadlayo wadahadallada waddankaasi Oman uga furmaya dhinacyada Iiraaniyiinta iyo waliba Mareykanka haddaba saacadaha soo aadan ayaa si rasmi ah wadahadalladaasi u geli doonaan si dhab ah isla markaana waxaa la tilmaamayaa in wadahadalladaasi looga hadli doono umuuro dhowr ah markii hore Iiraaniyiintu waxay sheegeen inaysan suuragal ahayn in laga hadlo laba qodob oo Mareykanku ku saddexeeyay saddex qodob oo muhiim ah arrinta Iiraaniyiintu diyaar ay u yihiin waxay tahay wadahadal laga galo dhanka ku saabsan kordhinta iyo bacriminta uraniumta iyo waliba hubka waxgumaada ee nuclearka sidaas daraadeed waxay sheegeen inay diyaar u yihiin qodobkaasi in laga wada hadlo laakiin aysan jiri doonin uraniumta oo dhan in la baabi'iyo ama dibadda waddan kale la geeyo wadahadallada waddankaasi Turkiga ayaa markii hore martigelin lahaa laakiin sababo dhowr oo jira iyo Turkiga oo soo bandhigay saddexda qodob in laga doodi doono waxay Tehran ka doorbiday Oman oo ah meel lagu yaqaano istiraatiijiyadna u ah dhanka wada hadalka isla markaana isu soo dhaweynta dhinacyada sidoo kalena halkii lagu guuleystay heshiiskii waqtigii Obama uu joogay in Iran ay saxiixdo isla markaana loo ogolaado heshiiskii nuclearka haddaba su'aashu waxay tahay heshiiskan muxuu uga duwanaan doonaa midkii hore waxaa la xaqiijinayaa in xiisaddu ilbiriqsi kastaba ay markaasi kordhi doonto waliba wada hadalka uu burburi karo laakiin haddana Cumaaniyiintu ayaa la aaminsan yahay in juhdi kastaba ay ku bixin doonaan sidii wada hadalladu ay u miro dhali lahaayeen madaxweynaha dalka Mareykanka shuruudo dhowr ayuu isagu soo gudbiyay laakiin shuruudahaasi inay miro dhalaan waxaa ka horeeya qodobo dhowr ah kow ka bixitaanka amaba gibi ahaanba in la qaado 400 kilogram oo uraniumta oo aad u sareysa isla markaana la doonayo zero in laga dhigo sidaas ayay doonayaan Mareykanka iyo xulafadiisu markaa ugu horeeyo Netanyahu sidoo kale la burburiyo barnaamijka nuclearka oo ah gantaalaha dhaadheer ee gaara meela markaasi fogfog sida saldhigyada kala duwan ee Mareykanku ku leeyahay mandiqada bariga dhexe iyo waliba canuga bariga dhexe lagu ilaalinayo Israa'iil sidoo kale waxaa si cad loogu sheegay in tani ay tahay mid khatar kale oo ah haddii labadaas ay ka tanaasusho waxay ka dhignaanaysaa in gibi ahaanba ay isdhiibtay Iiraaniyiintu ilbiriqsi kasta ayaa loo imanayaa laguna luqluqan doonaa sidoo kale barnaamijka balistiga warshadaha soo saara waa la baabi'inayaa halka uu isagu gaarana waa laga tanaasulayaa horumarintiisuna iskaba hilmaa marka tani waxay ka dhignaanaysaa arrin digniin u ah jiritaanka nidaamkan waana ay diiday Iiraaniyiintu laakiin Trump qodobkan waa qodob ka mid ah qodobada uu isagu doonayo sidoo kale waxa uu doonayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn in wax laga bedelo taas oo iyaduna ka dhigaysa Iiraaniyiintu in ilbiriqsigii ugu dambeeyay iyo waliba halkii nidaamkoodu uu ku nafixi lahaa ay gaari doonaan sidoo kale burburinta maleeshiyaadka waxa loogu yeeray amaba garabyada kala duwan ay taageerto sida Hezbollah Iraaqiyiintu iyo xitaa Falastiiniyiintu markaa taas oo sheeko gaara noqon doonta haddii ay awoodaan inay
xakameeyaan nidaamka hadda jooga ee Khamenei. laakiin Iiraaniyiintu iyaguna maxay doonayaan inay hirgeliyaan? marka laga hadlayo hirgelinta qodobka ugu muhiimsan ee Iiraan waa in laga wada hadlaa barnaamijka hubka waxgumaada ee nukliyeerka, sidoo kale taa beddelkeedana laga qaado cunaqabataynta. waayo aad bay ugu baahan yihiin laga qaado, maxaa yeelay marxalad aad iyo aad u adag oo dhaqaale ahaan ay marayaan dalka. sidoo kale waa inaanba laga wada hadal barnaamijka balastiga iyo gantaalaha dheerdheer, waayo waxay aaminsan yihiin waxa keliya ay ku badbaadi karaan taa inay tahay iskana hilmaanba in laga wada hadlo garabyada taageera, maxaa yeelay iyagu waa garabyo madax bannaan, xor ah, iyagu markaasi ka arrinsan doona. taa oo ka dhigi karaysa halkii iyagu lagu duuli lahaa. weli waxaa la tilmaamayaa haddii heshiisku miro dhalo oo dhinacyadu ay markaasi tanaasul sameeyaan, waayo lama garan karayo, mid kastaba mowqifkiisa uu ku adkaysanaya. Trump wuxuu lahaa waan ku soo socdaa odaygii Khamenei ahayo, laakiin weli sheekadu waa faan oo leh fara kama qodna. ha hilmaamin channelka Warweyn inaad subscribe saartid, si share garaysid muuqaalka. mahadsanid.